بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرضيدا كنت حن channelك chapterkii electromagnetic induction ayaan goor hore bilownay oo lesson 1 ka ah introduction-ka oo electromagnetic induction-ka ayaan soo barnay qayb part ayaan ugu dhibnay partiga labaad aan dhameystireen oo lesson 1-ka cashirka koowaad. cashirkan maanta waxaan ku baran doonaa insha Allah wax loo yaqaano direction-ka jihada of induced uu ku soo saarmo current dabka ama qulqulka ama maayada in a wire marka la dhaxmarsiinayo fiilada ama conductor-ka. hore waxaan u soo baranay electromagnetic induction-ka markuu koronto laga dhalinayo electricity laga dhalinayo qaabka loo electromagnetic induction-ka waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano waxaa la isticmaalaa magnet birlab ayaa korontada laga dhaliyaa. waan ka soo hadalnay cashirkii ka horeeyay. marka maanta waxaan baranaynaa direction-ka jihada of induced ee lagu soo saaro current jihada uu ku soo saarmo dabka in a wire markuu ku soo saarmayo fiilada. if the straight wire haddii fiilada is moving ay u dhaqaaqayso at right angle haddii xagal quman ee ku noqoto magnetka to the magnetic field bedka birlabeed, the direction jihada of the induced current ka soo baxayo can be found waxaa lagu helaa by using iyadoo la isticmaalayo Fleming's right hand rule ama wax loo yaqaano right hand rule ayaa la isticmaalaya. marka si loo ogaado direction-ka jihada uu current-iga soo baxay dabkan dhashtay jihadiisa si loo ogaado iyadoo la isticmaalayo wire-ka waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano Fleming's right hand rule ayaa la isticmaalaa. Fleming's right hand rule-ka la isticmaalo marka Fleming's hand rule waa kala marka si sawirka idin kaga muuqdo. Fleming's right hand rule wuxuu leeyahay saddex xeer ayaa la isticmaalaa. waxaa la isticmaalaa kow suulkaasi oo cadeynaya motion-ka dhaqaaqa meesha wire uu dhaqaaqayo iyo farta koowaad first finger ee loo yaqaano ama farta hore ayadoo taasna waxay muujinaysaa magnetic field bedka birlabeed ama magnetka directions ayay ku tusinaysaa. fartan kala dhexe oo loo yaqaano second fingerna ama farta dhexena waxaa loo yaqaanaa waxay ku tusinaysaa induced electromotive force halka dabka uu socdo dabka sidoo u dhashtay ayaa halkaasna ay ku cadeynaysaa. marka saddexdaas qaab ayaa mar walba loo soo saaraa current-iga soo baxay ama dabkan dhashtay si loo ogaado waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaan Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule marka waxaa la isticmaalaa suulka iyo farta ku xigta iyo farta kale oo dheer sidaas la isticmaalaa. sidaas suulka marka wuxuu muujinayaa motion-ka wire-ka hal meesha uu dhaqaaqay. farta dhexe farta ku xigta waxay isticmaalaysaa meesha uu magnetic field-ga magnetka birlabta halka ay u socoto. farta dhexena oo dheerna waxay ku tusaysaa halka uu magnetka dabkii dhashtay current-iga dhashtay halka uu socdo. marka mar walbo fartan muujinaysa halka magnetka hadda mid sawirka ay ugu muuqdo halkaana laga rabaa north-iga halkaana waxaa loola jeedaa south-ka macnaha qaabka uu motion-ka uu ku sameynayo. hadda marka ama waxaa kaloo isticmaali kartaa adoo midaasna aadan isticmaalin. hadda markaan rabno inaan soo saarno direction current-iga ama dabka naga dhashtay maxaan isticmaalaynaa suulkan waa motion-ka. hadda motion-ka motion-ka mar walbo wuxuu u dhaqaaqayaa halka motion-ka magnetka hadda fiilada saan oo kale markay tahay meesha uu dhaqaaqayso motion-kaasaad ka raacaysaa. magnetic field-igana wuxuu ku tusayaa halka uu ka jiro magnetka marka mar walba xagga north-iga ayuu aadaa halkaas north ayaa leenahay halkaana waa south. fartaas dheerna waxay ku tusaysaa current-iga soo baxay halka uu u jeesan yahay. marka Fleming's right hand rule Allah waa kana asagoo faahfaahsan halkan ayaa macnaha uu kugu sharxay. wuxuu ku dhahay fartaas waxay ku tusaysaa direction-ka jihada uu force-ga uu u socdo ama wire-ka. fartan dhexe waxay ku tusaysaa direction-ka magnetic field-iga oo ah xagga north-ka. fartan ku xigta waxay ku tusaysaa dabkii dhashtay halka uu u socdo dabka ma downward mu u baxay mis upward u baxay. marka mar walba waxay isticmaalaysaa saddexdaas farood ay isticmaalaysaa suulka iyo labada far ay isticmaalaysaa. marka mar walba suulka waxaad ku aadinaysaa halka force-ga ama wire-ka uu dhaqaaqay. farta ku xigta waxay isticmaalaysaa magnetka north-iga meesha uu ka jiro direction-ka dabka dhashtay direction-ka ku ogaatane waxaad isticmaalaysaa farta dheer ayaad isticmaalaysaa. hadda halkan waxaa inoo yaal magnetkan oo kale hadda muxuu ina tusayaa hadda magnetka wuxuu inoo tusayaa current-iga fartan marka ugu horeeya farta ayaan fartan koowaad waxaan ku aadinaynaa
halka direction northga halkaan oo naga jira kow farta halkaasaad ku aadinaysaa suulka waxaad ku aadinaysaa xagee u dhaqaaqday wire-ka xagga waxay u dhaqaaqday oo kore ayay u dhaqaaday waxaad ka dhigaysaa directionka suulka kore ayaad aadinaysaa marka haddii mar directionka uu u dhaqaaqay qaybta kore magnetkan uu kaa jiro northiga uu kaa jiro dhinacan fartan currentigana waxaa isticmaalaysaa marka currentiga soo baxay wuxuu noqonayaa upward ayuu noqonayaa currentiga soo baxay marka maxaa waaye upward ayuu noqonayaa directionkiisa kaas ayaa marka ku tusaya the law marka xeerkan muxuu ku dhahay the law says xeerka filmkiis right hand rule wuxuu sheegayaa if the finger haddii farta of four finger farta koowaad saddexda farood waa afarta farood saddexda far iyo faryareeda suulka farta ku xigta waxaa loo yaqaanaa four finger of your right hand gacantaada midigta farta koowaad indicates waxay muujinaysaa the direction jihada of magnetka uu socdo birlabta and tambe suulkana shows wuxuu ku tusayaa directionka jihada in which the wire ay fiiladu moved ay u dhaqaaqday ama conductorka ama coilka while halka your middle finger farta dhexena points ay tilmaamaysa direction jihada of the induced current dibkan dhashtay halka uu baxay ayuu mar walba uu ku tusayaa way aan usoo qaadanay directionka aan u baranay direction waxa u baranay waxa waa example waxa inoo soo socdo oo ku dhahaya waxa soo saartay directionka uu currentiga uu ku marka direction currentiga waxa rabnaa in automatically oo aan soo saarno induced electromotive force maxaa la marka induced electromotive force Afsoomaali waxa loo yaqaanaa xoogga danabwadaha force waa xoog ama awoodda induced electromotive waxa loo yaqaanaa xoogga danabwadaha maxaa la waa EMF loo soo gaabiyaa waa the potential difference waa kayd faraqa produced uu soo saaro by the battery-ga ayaa iskoolta waxa loo yaqaanaa electromotive force ama EMF it is represent wuxuu taagan marka waa potential difference uu taagan yahay laakiin ma ahan potential difference waxa loo yaqaanaa induced electromotive force it is measured halbeega EMF lagu cabirana waa voltage ayaa loo yaqaanaa waayahay EMF weli wuu socdaa wuxuu ku dhahay when a conductor marka gudbiyaha is moved loo dhaqaajiyo across magnetic field birlabeed marka loo dhaqaajiyo an EMF ka lagu dhahay electromotive force ayaa induced ayaa la soo saaraa between waxa laga soo saaray inta u dhaxaysa this is called kan waxa loo yaqaan electromotive force kan waad ku definition gareyn kartaa and it is denoted electromotive forces ka waxa loo qaataa electromotive force-ga waxa loo qaataa calaamadaas waxa loo yaqaan electromotive force hadii idoo kale waaye laakiin calaamada electromotive force taas ayaa loo yaqaanaa electromotive force marka waxa loo helaa B lagu dhuftay L lagu dhuftay V ayaa lagu helaa marka L maxay ku taagan tahay waa the length waa dhererka fiilada B waxay u taagan tahay magnetic field cufnaanta magnetka ama birlabta V waxay ku taagan tahay waa velocity waa xabaaraha uu ku socdo uu ku sameeyo dibka magnetka idana waa EMF tio aan soo barno halbeegada ayadana waa volt halbeeg length waa maxay halbeeg length waa meter halbeeg magnetic field waa Tesla halbeeg velocity speed waa meter per second halbeeg electromotive force waa volt marka magnetic force ayaa jiri karto oo loo yaqaan F loo soo gaabiyo hadii asagan lagu diro magnetic force waxa loo yeelaa magnetic field oo lagu dhuftay electric current oo lagu dhuftay length qaacidada ay isticmaalaysaa marka halka joule wuxuu u dhigmaa newton meter waa v waa voltage halka voltage waxa kugu dhigmaa joule per coulomb halka ampere waa 1 coulomb per second intaas marka waa asaaska caadiga ah form 3 ku soo qaadan tusaale in aragna marka tusaale wuxuu ku dhahay 0.20 meter every dhibic 20 meter oo straight wire fiilo ayaa moves at constant speed waxay ku dhaqaaqday xabaaro oo 7 dhibic every meter per second waliba qaab perpendicular ah ku magnetic field bedka birlabeed it is strength hadii magnetic field-ga ama wax loo yaqaan magnetic field strength ama magnetic flux density wax loo yaqaan saddexda baa la dhigi karaa waxa uu qaadataa 8 dhibic ever lagu dhuftay 10 ku jibaaran -2 Tesla su'aasha la rabo marka waxa waaye waxaan la diray how much induced waa imisa induced current-ga induced electromotive force xoog danabwadaha soo baxay waa imisa uu soo saaray wire-ka number B waxa laga rabaa if the wire hadii fiilada ay leedahay resistance caabi oo ah ever dhibic 50 ohm what is the magnitude waa ma qiimaha current-ga ama dabkaasi soo baxay anda iyo waxa kale oo raacsan B-da su'aal kale oo waxa kale oo soo saartay direction jihada oo current-ga uu ku dhex maray wire-ka dhexdooda su'aalaha intaan kaga jawaabayna marka waa kana كوم analysis length analysis oo ever dhibic 20 meter ah speed ku ayaasna waa 7 dhibic ever meter per second magnetic field-ga waa 8.0 times 10 power minus 2 Tesla resistor ayaasna oo ever dhibic 5 oo ohm ah su'aashku waa nala diray
waa EMF kana soo saar electromotive force iyo su'aasha labaad oo ah current-iga iyo su'aal kala daba socoto current-igaas dhashtay ama dibkaas halkaas ka dhashtay direction-ku u baxayo kow eedan ku hormarayna macnaheedu EMF waxaa lagu helaa magnetic field oo lagu dhiftay length oo lagu dhiftay velocity magnetic field qiimihiisu waa 8.0 times waa 8.0 times 10 power minus 2 Tesla length waa fiilada waa eber meter velocity speed waa 7.0 oo meter per second sidaas marka lagu dhufto waxa soo baxayso eber dhibic hal oo volt EMF ka waxay noo soo baxday eber dhibic hal volt su'aasha labaad naga waxa electric current waxa lagu helaa voltage oo loo qeybshay resistor electric current waxa lagu helaa voltage oo loo qeybiyay resistor ka ayaa lagu helaa voltage marka waxa ku soo baxay voltage marka waxa isticmaalaysaa EMF ku soo baxay EMF noo soo baxay waa eber dhibic hal volt waxa uu qeybanaysaa wax loo yaqaano eber dhibic 50 ama eber dhibic 5 ohm marka labada la isku qeybiyo waxay noo soo baxayso eber dhibic 2 oo ampere su'aasha marka direction marka ku soo saareynaa direction waxa ku soo saareynaa marka su'aasha marka saan oo kale nala weydiinayo waxa buug wuxuu ka tagay sawirka marka sawirka anagoo saan hadda ma ka jawaabi karno waa in marka hore sawirka aan helnaa sawirka marka direction-kiisa aan ku ogaanaynaa direction marka tusaale saan oo kale uu yahay magnetka saan uu yahay wire markuu saan uu yahay hadduu magnetka inta uu yahay north pole inta south pole uu yahay waxa isticmaalana Fleming's right hand rule marka hadii oo north pole dhinacan uu noo soo maro farta dhinacan noo soo marto magnetic field-iga wire direction-kiisa uu suulka qaybta kor oo noo tilmaamo dabkana current-iga dhashanaya haduu qaybta hoos uu tilmaamayo waxa leenahay current-kaas dhashtay waa downward waaye hadduu current qaybta kor sawirka uu muujinayana waxa leenahay waa upward waaye marka su'aashan marka waxa leenahay the current-iga dhashtay waa downward waaye current-iga dhashay qaybta qulqulka uu ku dhashtay waa qaybta hoose anagoo isticmaalayna waxa loo yaqaano right hand rule ama Fleming's right hand rule the current sidoo kale waa circle counter clockwise waa sidoo kale saacad wareeg counter clockwise waa sidoo kale saacad wareeg counter clockwise ka asna waxaan ku sharxi doonaa insha Allah lenses log ayaan si deep leh ayaan uga hadli doonaa insha Allah intaas ayaan kusoo keenaynaa lesson 1 chapter-kii electromagnetic induction-ka lesson-kii koowaad uu ka hadlay electromagnetic induction-ka marka example-kan si fiican isaga fiiri mar walba wixii lagu diro qaacida electromotive force taas isticmaalaysaa electric current waa kan hadii voltage lagu diro voltage subject ka dhigo hadii resistor lagu diro resistor ka aad ka dhiganaysaa current-iga marka downward waaye anagoo isticmaalayna Fleming's right hand rule anagoo isticmaalayna waa intaas ku keenana insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi